shaqada hadda professionka ugu liidata Soomaaliya maanta ee la qabto oo qofku yiraahdo waxaan qabto ma hayo waxaan macallin baan iska noqonaya iskuulaadku waxay ku bilowdeen si runtii isxilqaan iyo bulshada in wax loo qabto iyo dhalinyarada inaanay lumin iyo wax la mid ah bay ku bilowdeen laakiin waayadan dambe waxaad moodaa inay isu bedeleen nooc commercial marka hadda boqolkiiba 40 baa iskuul helayno ilmaha laakiin boqolkiiba 40 kaas iskuul helidoodu in reality school learning ma waxbarashadu ma aha qofku inuu iskuul tago waxbarashadu waxa weeyaan qofka inay wax ka bedesho thinkingkiisa inay qofka wax ka bedesho behaviorkiisa inay qofka ay u yeesho values inay u yeesho dadka literacy-goodu wax qori kara ama wax akhrin karaay waa boqolkiiba 45 ilmaheena boqolkiiba 60 ilaa 70 school age gaaray school ma dhigtaan oo meesha waxa ka baxay hamigii ahaa in dadka la badbaadiyo ilmaha in la badbaadiyo waana sababka keentay maanta dadka mobilka furanaya dadka gabdhaha kufsanaya dadka aan inay yihiin arday iskuul dhigata dadka aan u haysan iskuul inay inoo dhigtaan iskuul ma dhigtaan bismillaahi raxmaani raxiim mudanayaal iyo marwooyi kusoo dhawaada madasha may fakaraan kulankeedii sagaalaad kulanka waxaa marti ku ah Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamuud Hoori ciwaanka looga hadlayo waa waxbarashada dalka ma tahay mid ka jawaabaysa baahiyaha horumarineed ee dalka waxaan rabaa inaan wax yar ka sheego taariikhda doctorka oo kooban inta aan ka tagay insha Allah isaga ayaa noogu dari doona Dr. Maxamuud wuxuu haystaa darajada PhD-ga uu ka qaatay jaamacadda University of Leicester iyo MBA uu ka qaatay jaamacadda De Montfort University ee UK sidoo kale wuxuu haystaa shahaadada Chartered Manager oo ka qaatay Chartered Management Institute iyo shahaadooyin kale oo la xiriira nidaamka maareynta iyo tayada oo uu ka qaatay British Standard Institute Dr. Maxamuud waa xubin sare oo ka tirsan Higher Education Academy-ga ee dalka UK ee hadda loo yaqaan Advanced Higher Education wuxuu baraka ahaa jaamacada caana ee ku yaala dalka United Kingdom sida University of Leicester oo isagoo wax ka bartay University of Nottingham iyo Nottingham Trent University sidoo kale wuxuu ka shaqeeyay jaamacadda Taiba University ee dalka Saudi Arabia Dr. Maxamuud wuxuu qoray in ka badan 30 maqaal oo cilmiyeed sidoo kale wuxuu yahay dib eegaha ama peer review wax la yiraahdo journal cilmiyeed oo heer sare ah dhawaanahan wuxuu ka soo noqday la taliye sare ee barnaamijka manaahijta buugaagta waxbarashada Puntland ee Soomaaliya haddana waa la taliyaha sare guddiga sare ee maamulka shirkadda Golis ee Soomaaliya Dr. Farxad Gooni ay noo tahay runtii inaan caawa may fikraan aan nagala soo qayb gashid su'aasheeda koowaad intii yareeda koobnayd aan taariikhdaada ka sheegay maxaa noogu dari lahayd waxa intaasi waa ku filantay insha Allah taala hadii su'aasheeda koowaad hadda u gudbo waxa weeye Dr. waxa warbixin guud naga siisaa xaaladda waxbarashada dalka heerarkeeda kala duwan adigoo soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انت أنا وربحنت أوجد بين وحن بقادين يا رنتي مدشان ما يفكران صابتها وحي يقوم وقتها إني تارجت قرينا يان ماشى يقدر منيسو تدكو إن لعبارو قاب فكر كودا نلش هذا أركتي كهيستان behavior kooda well view-ga oo meesha runtii dadku ay aad uga burbureen in madalla noocan oo kala ah inta dadku ay aad ugu mashquulayaan kali ah siyaasadda iyo waxa la midka ah in socialka iyo psychology-ga iyo waxyaalaha dadka runtii kobcinaya garaadkooda capitalkooda kor u qaadaya in xoogga la saaro oo madalla noocan oo kala fara badan ay dhacaan aad baan runtii u bogaadinayaa afalaa tafakkaruun يعني وموضوع runtii loo baahnaa markaan u soo gudbo waxbarashada Soomaaliya in sawir laga bixiyo waa mowduuc runtii aad u ballaaran inta aanan sawir ka bixin waxaan rabaa inaan tilmaamo contextiga waxbarashada Soomaaliya sababtoo shayga haddii aan la tilmaamin contextigiisa waxaa laga yaabaa sawirka laga qaataa inuusan saxnaan oo uu khaldanaado Soomaaliya waa wadan wax kasta ay burbureen dawladdiisa baa burburtay mu'assasaadkii oo dhan baa burburay dadkii baa garaad ahaan iyo maskax ahaan u burburay
heer waxay gaareen dadku macallin iyo ardaygiisu ay isdilaan labadii dariska ahaa ay isdisho dadku ay isu dilaan wax aan macno lahayn dadka marka bulsho noocaas oo kale ah oo 30 sano muddo ku dhow haba yaraatee wax u dhaqan aysan jirin kontagastiga noocaas oo kale ah waxbarashada ka jirtaa in la sawiray u baahanta marka waa in la fahmaa inaynay ahayn xaalad caadi ah ama normal inaysan ahayn in la fahmay u baahan tahay sababtoo ah marka la rabo in la cabiro waxbarashada in la qiimeeyo status of education in a country waxay u baahan tahay metrics la isticmaalo baa jira caalamka oo dhan haddaynu marka isticmaalo metricska lagu cabiro wadamada horumaray ama wadamada degan oo stable-ka ah ama dowladda ay ka jirtay xoogaa fair noqon mayso yes isla metricski baanu adeegsan doonaa insha allahu tacaala marka metricska markaynu adeegsanayno waa inaynu ognahay duruufta innaga ina ku xeeran iyo xaaladda aynu ku jirno insha allahu tacaala marka metricskaasi wuxuun dhayta baan rabaa inaan idinla wadaago haddii ilaha yidhaahdo oo u baahan in lagu cabiro waxbarashada sawirkaasi marka wuxuu wejigayna ka saari doonaa wax le brutal facts yani xaaladda hadda ka jirta soomaaliya sidee bay tahay masalan marka ay noqoto waxbarashada dhowr waxyaalood baa muhiima in laga cabiro kow waxaa muhiima in laga cabiro access inteebay dadku waxbarasho heli karaan oo khaasatan dadka school age-ka ahi ilaa intee in la eg bay suuragal u tahay inay waxbarasho heli karaan waa wax laga cabiro waxaa kaloo laga cabiraa waxbarashadaasi tayadeedu ilaa intee bay la egta wax laga cabiro wey iyadana waxaa kaloo laga cabiraa governansiga iyo dadka policy makerska iyo dadka school managerska iyo waxa la midka ahi inteebay waxbarashadaas iyaduna qaabkeebay tahay yani waxyaalaha u baahan in metricska lagu saleeyo haddaynu fiirino dhanka accesska iyo waxbarashada ilaa in intee la eg baa ilmahaanu ay waxbarasho access u leeyihiin xaqiiqdii waxaan tilmaami karaa in 30 sano burburka ah waxbarashada Soomaaliya ay showd weyn soo goysay meesha wax laga soo bilaabay haddaad ogaan lahaydeen yani iyo hadda sida ay tahay anigu waxaan ilaahay fadligiisa oo mararka qaarkood aan ku faanaa inaan ahay iskuulkii koowaad Soomaaliya burburkii kadib inaan anigu ahaa maamulihiis u horreeyo iyo asaasayaashiis waa iskuulkii koowaad wey ever Soomaaliya burburkii kadib iskuulkaa meesha laga furay ma taqaanin yaa fikrad ka haysta garow magaciisi ma garanaysaan magaca la oran jiray yaa garan kara alfatx markii dambe alwaaxu isu bedeli doona waa dambe laakiin marka waxaa alfatx waxaan ku bilownay 2 qol allah u naxariistay oo uu na siiyey oday la oran jiray Cabdi Xuseen Nuur Dhagey oo masaajidka Al-Huda bixiyey dhulkiisa guriyo ka soo horjeedu leeyahay 2 qol oo uu leeyahay ayuu na siiyey 2 qol baan ku bilownay macallimiinta waxaa ka ahaa iskuulkaas ragga igala shaqaynayay nin aniga macallinkayga ahaa haddana aad looga yaqaan dhanka waxbarashada Axmed Ciise Faroole oo hadda alwaaxa ah mudiirkiisa guud waxaa ka mid ahaa aadan Sheekh Doon oo taqaaniin oo golisna maareeya ka soo ahaan jiray candidate madaxweynenimo ahaa waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Xaaji Yuusuf oo ragga hadda magaalada shuuqdeeda kibaarta waaweyn ka mid ahaa raggaas waxay ka ahaayeen raggii macallimiinta ka ahaa iskuulka maalin dhaxaas nin baa mar wuxuu ii soo diray sawir anigoo xafiiska fadhiya uu iga qaaday waagaas dabcan nin aad u dhalinyaro ah baan raggiina inta badan waa ka dhalinyaro baan u maleynay xilligaas marka waxbarashada waxay ka soo bilowday halkaas bay ka soo bilaabantay oo aan runtii uusan jirin dowlad aan lahayn oo policy makers aan lahayn oo curriculum la ogyahay aan lahayn oo textbooks aan lahayn oo waxaba yaraatee keliya ku dhisan Soomaalidu waxay yiraahdaan bayna qowsayn kala fadhi ka roon yani inaanay dadku waxba aysan waayin ayay ku saleysnayd waxbarashadaas marka halka ka soo bilaabatay oo dadka inteeda badan runtii dhowr 90kii dad iyagu isxilqaamay oo shacab ah ay ku dadaaleen inay wax furaan oo wax sameeyaan
oo in badanoo ka mida ay gacan qabanayeen hay-ado inta badan welina gacanta waxaa ku haya waxbarashadeena hay-ado ajaaniba gacanta ku haya laakiin waagaasi carab badan baa jirtay oo dacmin jirtay 9/11 baa ummadda bele usoo dirtay oo dacmigaasi xilligaas u go-ay marka wixii 9/11 ka horreeyey dacmi badan baa jiray oo caalamka carabta ka imaan jiray oo agoomaha iyo iskuulaadka iyo waxbarashada aada u taageeri jiray iskuulaadkuna saaad u ogtihiin inta badan carabi bay ku bilowdeen xoogoodu ilaa iyo dhowr 90ka aakhirkiisii carabi bay ahaayeen iskuulaadku xoogoodu hadda laakiin waagii dambe waxay isu bedeleen inay noqdaan English inay noqdaan waxbarashada marka noocaa ahayd maanta oo la joogo waa maxay marka la cabiro accesska dadka intee leeg baa wax dhigata qualitygeedu seebu yahay baan rabnaa inaan wax ka tilmaano cabirno insha allahu tacaala enrollmentiga markay noqoto ardada iskuulaadka dhigta primaryga iyo secondaryga markaan leeyahay primary iyo secondary badanaa primaryga ilaa dugsi dhexe camal baa ku jira primary bay isku yihiin secondaryguna waa waxbarashada dugsiga sare tertiaryguna waa wixii jaamacad loo gaaro wey soo ma garan primaryga marka taqriiban hadda xisaa'iyaadka hay-ado badan baa wax ka qora dowladaha nafsigoodu federaalka puntland somalilan raboodiyay leeyihiin iyo amis iyo waxyaalo qaab ay u ururiyaan waxaan samayn doonaa marka waa isku average garanaya macluumaadka aan sheegayo waa macluumaad average oo yani approximation taqriibiya wey marka primaryga oo kale ilmaha inta iskool dhigata taqriiban waa 30% ilaa 40 taa macnaheedu waxa weeyaan ilmaheena 60% ilaa 70 school age gaaray school ma dhigtaan secondaryga isagu waa disaster ilmaha iyagu secondary gaaray taqriiban ay ahayd inay secondary dhigtaan waxaa dhigta in ka yar 10% daad macnaheedu waxa weeyaan 90% baan ilmaha secondary gaaray aan iskuul dhigan UNICEF iyo hay-ado badani waxay tilmaameen ilmaha hadda iskuulka aan dhigan oo aad iskuulka inay dhan yihiin ilaa 3 milyan taqriiban ilmaha inay dhan yihiin dadka literacy-ga marka la fiiriyo youth literacy-ga dadka dhalinyarada la oran karo dadkaas waxbay qori karaan waxbay akhrin karaan dhalinyaro marka la yiraahdo badanaa cabirka la qaataa wuxuu yahay 15 ilaa iyo 24 jir dhalinyaradaasi dadka literacy-goodu wax qori kara ama wax akhrin karaay waa 45% ogow waxaa laga yaabaa dadku marka ay nambarada maqlaan inay ku dhisaan inta garowa joogta ama inta magaalooyinka jooga laakiin populationka marka laga hadlayo waxaa ku jira tuulooyinkii baa ku jira reer miyigii baa ku jira overall populationka Soomaaliya dhan baa laga hadlaya waana saad fahamtaan yani laano they matter yani reer miyigu waa dadkeeni weeye inaysan waxba baran waana xanuujinaysaa dadka rural areas inaysan waxba baran waana xanuujinaysaa marka xisaa'iyaadkani way ku jiraan maaha dadka magaalada jooga kaliya maaha marka ay noqoto dadka adultiga ah waaweyn literacy-goodu ama dadka aan formal education lahayn dadka aan waxbarasho rasmiya iskuul dhigan qofku meelaha waxbaa ka bowsan karaa laakiin iskuul dadka aan dhigan dadka waaweyn xisaa'iyaadku waxay tilmaamayaan inay marayaan 65.5 haduu 65 dadku formal education ma laha overall populationka inta secondary ka baxday waxay dhan tahay taqriiban ilaa 5% iyo ka yar overall populationka waxaa jira wax lagu cabiro ilmaha learning poverty wax la yiraahdo learning poverty oo hadda World Bankiga ayaa matrixka iskale iyo wax kale oo la yiraahdo Human Capital Index ilaa mashruuc uu bixiyay Human Capital Project 2018 uu kiciyay ayaa waxa lagu cabiraa matrixyo iyaguna tilmaamaya dadka generationka soo socda ama dadkaas aqoonta halkabay ka marayaan ilmaha marka 10 jirka ah badanaa marka faqriga aqooneed learning poverty waa faqriga aqooneed marka la cabirayo waxyaalaha laga cabiro waxaa ka mid ilmaha 10 jirka ah ilaa intee la-eg buu minimum standardkii laga rabay buu wax akhrin karaa reading proficiency-ga ilmahaasi innaga
waxay tilmaamaysaa ixsaa'iyaadku inay boqolkiiba taqriiban 90 iyo wax ka badan u yeelaan poverty-geenu yani boqolkiiba 90 iyo wax ka badan waxaa jira wax kaloo la cabiro human capital index oo dadku qofku markuu dhasho ilaa maalinta uu 18 gaaro hadduu waxbarasho dhammaystiran helay caafimaadna qabo aqoon intee la eg buu qofkaasi kasban karaa waxay cabiraysaa productivity-ga qofkaasi iyo potentialkiisa inuu gaari karo waxa human capital index World Bank aad bay u ururiyaan waddamadoo dhan caalamka marka haddaynu benchmark u samayno caalamka horumaray oo kale North America oo kale taqriiban 75 ayay potentialka gaarayaan qofka isagu markuu dhasho ilaa 18 jir inta uu productive noqon karo aqoonta uu kasbaday Yurubta waa 70 meelahaas Africa taqriiban 50 Soomaaliya marka la cabiro yani waxa jira component factors laga cabiro expected years of schooling learning adjusted years of schooling waxa la yiraahdo learning score يعني harmonized learning score يعني waa factors marka aragto inaad xisaabisid yani qofku waa Google garan kartaan human capital index hadda insha Allah ama ChatGPT baad weydiin doontaan qaabkee baa loo cabiraa adduunka hadda in wixii la calculate gareeyo aad bay u sahlan tahay Soomaaliya markaan qiyaasay waan isku day inaan calculate gareeyo anigoo adeegsanaya statistics hadda available ka wuxuu noqday human capital index-keedu ugu badnaan marka la buunbuuniyo boqolkiiba 13 yani qofku u fiirso markuu dhasho ilaa markuu 18 gaaro inta uu noqon karo productive ama potentialkii laga rabay uu gaari karo waxay noqotay boqolkiiba imisa 13 yani generationka noocaas oo kala ahi inteebuu marka wadankaas horumarkiisa dhaqaalihiisa kobciisa inteebuu ka qayb qaadan karaa yani waxa khasaare ah in ka badan boqolkiiba 80 xoog aad baan u dheereeyaa uma leeyahay soo ma jeed runtii doctor warbixin aad u muhiim ah nasiisay runtii dhinacyo badan taabanaysa idigoo hadda markaan fiirino waxyaalihi aad sheegtay oo dhan nidaamka waxbarasho ee dalka ka jira ma yahay mid marka ka jawaabaya baahida horumarineed uu u baahan yahay dalka Soomaaliya maadaama wadankeenu sida aad hadalkan ugu bilowday 35 sano dad burbur ku jiray aan nahay run ahaantii natiijooyinka hadda aan akhriyay oo dhan waa outcome ama natiijo ka dhalatay nidaamka waxbarasho ee hadda jira hadday noqoto iskuulaadka jira hadday jirto macallimiinta jira مثلا hadda macallimiinteenu boqolkiiba inta dadka tababaran boqolkiiba 40 baa lagu qiyaasaa oo macnaheedu uu yahay boqolkiiba 60 macallimiinta iskuulaadka wax ka dhigtaa ma tababara yani ma laha khibradii macallinimo ama college oo education ama ay tababar ku soo qaateen kama aanay soo bixin governance-ga iskuulisku ma xoog badna wasaaradaha waxbarashada iyo ciddii la rabay inay monitor garayso ama ay daba gasho rag khubradii wasaaradaha waa nala joogaan iyo ragga ka soo shaqeeyey runtii sidii la rabay ma ahan waxbarashada xooggeeda gacanta waxaa ku haya private sector oo aad mooday hadda waagii hore iskuulaadku waxay ku bilowdeen si runtii isxilqaan iyo bulshada in wax loo qabto iyo dhalinyarada inaanay lumin iyo wax lamid bay ku bilowdeen laakiin waayadan dambe waxaad moodaa inay isu bedeleen nooc commercial oo just in laga helo dakhli ama salariga macallimiinta laga dabaro ama dadka markaa lihi aanay ku khasaarin iyo wax la mid ah oo meesha waxaa ka baxay hamigii ahaa in dadka la badbaadiyo ilmaha in la badbaadiyo waana sababka keentay maanta dadka mobilka furanaya dadka gabdhaha kufsanaya dadka aan inay yihiin arday iskuul dhigata yani shayga qariibka wuxuu ahaa dhacdadii maanta la saanood ka dhacday in markii iyagoo xiran la yiri imtixaankii ha galeen waa arday weeyaan dadka noocaas marka outcome-ka noocaas oo kala ah waxa soo saaray waa systemka maanta jira oo runtii aan ka tarjamayn aqoontii iyo akhlaaqiyaadkii iyo quality-gii waxbarasho ee loo baahan doctor waxbarashada laba arrimood baa muhiim u ah in la heli karo sida aad sheegtay boqolkiiba 60 dadku out of school quality-gana dee waa isla ognahay meeshay marayaan marka
aragti ahaan seebaa accesska waxbarashada ama helitaanka waxbarashada loo kordhin karaa isla markaana iyadoo quality-ga laga tegay run ahaantii hadda accessku si kastoo u liito mushkilada hadda ugu weyni ma hadda access keli ah qofkii iskuulkii inta dhigatay ogow waxbarashadu ma aha qofku inuu iskuul tago waxbarashadu waxa weeyaan qofka inay wax ka bedesho thinkingkiisa inay qofka wax ka bedesho behaviorkiisa inay qofka ay u yeesho values inay u yeesho qofka waa in la kala garan karo inuu yahay qof waxbarasho ku jira iyo qof aan waxbarasho ku jirin laakiin hadday noqoto meel uun ardadu lagu mashquuliyo oo ay subaxdii tagaan oo haddana ay galabti ka soo dareeraan oo waxba aan ka bedelin noloshooda aan saamayn ku yeelan ama impact aan ku yeelan waxbarasho maaha marka hadda 40% baa iskuul helaynuna ilmaha laakiin 40%kaas iskuul helidoodu in reality school learning ma yani waxa kale jira qofku inuu iskuul tago iyo inuu qofku learning inuu wax baranayo marka learningku waa inay qofka noloshiisa impact ku yeelato oo la kala garan karo qofkaasi aqoonta waa inay bedesho attitude-kiisa iyo nadarada uu ka haysto tasawirka nolosha uu ka haysto taa marka haddaysan bedelin accesskii macno yeelan mayo si kastoo loogu dadaalo in access loo sameeyo yes waa musiibo in 60% ilmaha school age-ka gaaray aanay waxbarasho ku jirin laakiin 40% gaalay naftigoodu waxbarasho kuma jiraan taas waa musiibo aksar yani shicibeyda waxa jira oranaya in kunta tadri fatilka musiiba wa in kunta la tadri fal musibatu a'zamu dadka aynu u haysan school inoo dhigtaan school ma dhigtaan yani muuqaalkii iyo qoloftii baa school dhigata laakiin runtii school ma dhigtaan inaad marka badisid hadda maanta macna badan noo sameynayso ilaa iyo 30 sano hadda u dambeeyay waxa aad la isugu mashquulinayay access hay'adaha oo dhami waxbarashada caawiya waxay ka shaqeeyaan xoogoodu access bay ka shaqeeyaan laakiin quality aad loogama shaqeeyo inagu marka maanta waxaanu u baahannahay in waxa aynu haysanaa haba yaraadeen laakiin waa inay noqotaa wax macno sameynaya waa inay noqdaan ogow waxbarashada accesskeedu wuxuu liitay xilligii dowladdii ay jirtay Soomaaliya kacaanka aad buu liitay accesska waxbarashada magaaladan Garowe waxa ku yaala hal iskuul primary waxa ku yaala hal iskuul oo dhexe waxa ku yaala hal iskuul oo sare Soomaaliya oo dhan hal jaamacad baa ku taalay oo waliba inta loo ogol yahay inay galaan ay aad u yarayd aniga maalinta jaamacadda bilaabayay 2,000 oo arday miyaan ku galay 100 iyo xoogaa baa laga rabay inay jaamacadda oo dhan ay qaadato soo ma gar iyo wax la mid secondary-ga si kastaad 100% u saartay macna ma lahayn imtixaan kale oo interi habaad galaysaa oo inaad ku baasto aad u baahan tahay yani runtii wuxuu ahaa wax aad u controlan buu ahaa laakiin dhinaca kale infrastructure-ka iyo say rabaan baa u liiteen laakiin nooc quality abaa jiray oo qofku value bay waxbarashadu la lahayd qiimay la lahayd qofka waxa jira value expectancy theory psychology qofku ficilkan uu sameynayo waa inuu ka arkaa value waa inuu ka arkaa si ay inuu ku dhiirado inuu sameeyo inaanu sameyn ay ugu bixiso manhajka waxbarashada dalka sida hadda aad sheegtay inta badan waxaa tiri iskuulaadka ardaydu waa dhigtaan laakiin waxay dhiganayaan baa muhiim in xoog la saaro waxaasna waxa ugu muhiimsan manhajka ama ardayga curriculumka la barayo qayb badan waxaa ka ogey adduunka meelo badanna waa soo martay manhajkeedu ma yahay ardayga manhaj soo saaraya ardayga aan u baahana wadankeena weliba Soomaaliya baahideenna arday soo saaraya xirfadada qaraanka qofka Soomaaliya horta runtii dadku badanaa waxay aad isu dhexgeliyaan manhajka iyo textbook-ga iyo syllabus-ka iyo wax dhan way isaga dhex jiraan textbook maaha manhajkii textbook waa material ardayga uu adeegsanayo si wixii la rabay inuu barto ay u gaargarayso manhajku waa ka guda ballaaran yahay manhajku waxay tilmaamaysaa structure-ka waxbarashadu maxay noqonaysaa arday noocee abay tahay in uu soo baxo maadooyinkee baa ardayga loo dhigayaa intee mustawayaad bay noqonayaan yani qaabkeebaa ardayga loo asas garaynaya loo qiimeynaya waxbarashadiisii manhajku waxaad u ballaaran waay xataa waxaad la yaabsa marka qaarkood dad oo wasiiraha oray manhajkii baa la qoray yani ama la daabacay buu oranayaa waxaa laga hadlayaana waa textbooks yani adduunka annaga caalamka aan ku noolahay Yurubta textbook ma laba xataa primary textbook ma leh
يعني سو عجيبة ما online كما online كياس ويجرا wax badan platform online laakiin qof iskuul buu joogaa iskuul maaha inuu online ku baranayo laakiin textbook ma lahan oo muqarrara oo go'aan ma leh laakiin wuxuu leeyahay syllabus macalinka isaga materialka waa inaanu syllabuska ka bixin waalidku isaga 100 shirkadood baa jira oo nin walba qoro buugaag ku haboon levelkaas ku haboon marka suuqaad ka gadanaysaa 5 buug oo wada year 1 oo math ama maaragtay science oo shirkado kala duwan kala qoreen oo example kala duwan leh oo exercise kala duwan leh oo ninba angle ka fiirinayo soo maaragtay oo qaar kood online material ay jiraan qofka access u leeyahay muhiim waxa inaan laga bixin syllabuska inaan laga bixin qofka waxa la rabaa maadada inta in looga dhigo oo mowduuc oo levelka noocaas oo kala learning outcomeskaas waa in qofkii wax la xaqiijiyo way laakiin textbook ma aha macna weyn ma lahan runtii inagu laakiin manhajka waxaanu hadda u naqaanaa textbook booktii inuu yahay saxna maaha xilli aan hadda siyaad barre dawladdiisii anagoo ardada ahayn buwaagta anigu waxaan ku soo beegmay xilli dawladdu ay aad u faqraday oo dagaalo badan ay gashay oo yani uu aad u xilligii sii dhacaysay taqriiban marka buugaagba ma jirinba hal buug baa laga yaabaa 3 yeer inay isu daba marto oo adiga laga qaado oo mid ku feegaaray oo jildiga ka jeexay oo baalal ka maqan yihiin in sanad kale lagu siiyo haddana qofkii laga qaado oo qofka ardayga sanad ku xiga la siiyo Soomaaliya yani buugaagtu ila xadkaas ay ahaayeen laakiin muhiimadu marka buugta ma aha waa mawaadiicda iyo waxa qofka laga rabo inuu yaqaan ardayga competency-ga ardayga iyo skills-ka ardayga laga rabo yeerka markuu mustawaha mariyo qofku muxuu yaqaanaa yani aniga mesela profile graduate profile ardayga in la sawiro model oo le qofku primary markuu ka baxo qof noocee ah baan rabaa inuu aqoon intee leeg inuu ka leeyahay markuu dugsi dhexe ka baxo ilaa intee buu leeyahay secondary ya qoraal ahaan yes yani waxa qorana ma xuma yani waxa qorana ma xuma inaga mushkiladana ugu weyn hadda ma aha inuu wax qoran aysan jirin laakiin waa fulin iyo monitoring iyo controlkii gaariga hadduu baraagga ka lumo hadda meeshu rabu jiiraya soo ma yani ama isteersadu ay go'do meel la ka leexan mayo inaga hadda mushkiladeenu ma aha manhajka inaanu manhaj qorani jirin in fact manhajta inoo qorani kama liitaan kuwa East Africa iyo iyagaaba laga soo dheegtay in badan oo kamid ah siyaasadkeena waxbarashada meelahaas laga soo dheegtay oo internetka meel walba ku jiraan qoraal ahaan wixii ma xuma textbookska hadda ardaydu ay haystaan waxa ku qoran ma xuma qoraal ahaan laakiin applicationka iyo fulinta mushkilada meesha u dhimanaysa waa halkaas taas baan marka aan control lahayn taas way waxaan control kala inta badan maadooyinka STEM-ka ardaydu waa ku liitaan iyo luqadu kaliya ma Soomaaliga Englishka ma aha ardaydu inta badan waa ku liitaan Soomaaliga iyo Carabiga marka imtixaanaadka la qaado marka caqabadaas xagee bay ka jirtaa seena wax looga qaban karaa oo hadda markaas fiiriso imtixaanaadka siiba centralized-ka pass rate-ka ardada marka la jajabiyo maadooyinka STEM-ka loo yaqaano oo runtii wadanada laga cabiro horumarka wadanka dhanka technology-ga iyo waxyaalaha laga cabiray kamid tahay aad baynu ugu liidanaa waxa keenay inaan ugu liidanana waxay u baahan tahay infrastructure learning infrastructure ama yani educational infrastructure bay u baahan yihiin laaba bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin resource ka baxsan macalinka kaliya projectyaal bay u baahan ardaydu inay sameeyaan meelaha kale hadda caalamka ardayga project buu sameynaya isagoo primary ah ayaa project loo dirayaa yani experiments buu sameynayaa wixii waxa la rabaa qofkii in uu hands on waxyaala practical ay u baahan yihiin inagu marka facility-ga ma hayno garow waxaan ku arkay gambool baa wax laab aan ku arkay chemistry waxa laakiin cajiib ahaa laabkaas runtii in la xiro u baahnaa oo yani arday inay gasho ama dhigato safety ahaan waa wax xilligaas hadda inuu isbedelay waa laga yaabaa yani qol yar ah oo laga yaabo mitir iyo bar iyo 2 mitir ayaa chemicalskii oo dhan ay ku jiraan oo aan ventilation lahayn oo fume hood aan lahayn oo in badan oo kamid ah ay dhaceen qaar kamid ah labelkii baaba'ay ku dul daatay ardada meel hall weyn oo kuraas miiran taalo oo ganjeelo yar oo aan xataa fire exit aan lahayn
oo ardayga hadduu isbilgaroobo acid aanay iyagu inay isbuurtaan istambiirkaas inay ku dhintaan laga yaabo yani runtii yani at the same time wuxuun bay lahaayeen oo ardayga la tusi karo titration marka la sameynayo marka acid iyo base la isku darayo combustion marka la sameynayo wax la mid ah soo ma garan wixii marka waxay u baahan tahay facility physical facility by the way wax badan oo ardayda waxay u baahan tahayna waa wax kitchenkeena laga heli karo wax wadanka la sameyn karo laga heli karo dry lab waxa leedahay jira mar baan Kaplan International College marka shaqeyn jiray marka labka wax anagu aan homemade baan inta badan ardayda wax ku tusaaleynayna ku waxayneen soo ma garan waa wax marka dadku laakiin waxay u baahan tahay macallimiintii moraalkii baan jirin macallinku shaqada hadda professionka ugu liidata Soomaaliya maanta ee la qabto oo qofku yiraahdo waxaan qabto ma hayo wuxuu macallin baan iska noqonaya soo ma garan saas oo ma had yani waa shaqada hadda ay ardaydu ay laanahu qofkii moral ma jiro dhaqaale ma jiro wax bixin male yani dawladda siyaasad gaar kama laha anaga ugu yaraan waagan ardayda ahayn maadooyinku isku value ma ahayn حتى waxaan leedahay isku score yihiin baan u maleynayaa hadda anaga waaga isku score ma ahayn maadooyinka STEM-ka iyo kuwa social-ka ay isku score ma ahayn qaarna 50% waa lagu saxayay qaarna 100 baa lagu saxayay u fiirso ardaygu marka si uu u gaaro baaska meeshii loo baahnaa waa inuu xoog saaraa mawaadii marks ka badnayd yani overall adiga 100% imisa ka keentay 600 point laakiin marka maadana 100 lagu saxay maadana 50 lagu saxayo teebaad xoog saaraysaa hadii aad strategical rabtid inaad mark fiican aad keentid maadada 100 kaad xoog saaraysaa Soomaa marka laano maadooyinka priority kala leh hadda waxaan leeyahay waa garba siman ardaygu marka intuu isku shaqoolin la math iyo science gabay iyo wuxuu raasanayaa Soomaali iyo wax la mid ah buu qofkii raadinaya marka runtii waxay u baahan maadooyinkaas infrastructure buu u baahan yihiin policy buu u baahan in ardayga macallinka dhiga caalamka hadda UK oo kala marar bay waxay sameeyeen hadba meesha shortage ka jiro ayaa salary-ga loo badiyaa macallin مثلا waxa laga macallinka maaska dhiga hadii shortage ka jiro inuu dheer yahay dhowr kun sanadkii macallinka kale sababta siyaasadii waxa in la xoojiyo macallin halka inay soo baxaan inaga marka dawladeenu mushkilada jirta waxa weeyaan priority waxbarashada uma aha iyo in wixii macallimiinta la horumariyo hadda Puntland hal college bay kala hayd macallimiinta soo saara college-kina 3 sano ka hor buu xirmay taqriiban ya GTech soo ma garan marka waa halkii college macallimiinta inoo tababarayay soo ma aragtaan ilaa waxay ku tusinaysaa ilaa inta in la eg waxbarashadana gacanta waxa ku hay ajaanib baa gacanta ku haysta hay'adaha caalamiga hay'adahaasi hadday meesha ka baxaan salkay dhulka ku dhufanaysa inta dhaqdhaqaaqaysaana intaas ku dhaqdhaqaaqaysa soo ma garan dawladaheena waxay isku haystaan aydka ay dawladahaasi bixiyaan banaanka ahi ana qaybinaya iyo ana qaybinaya soo ma intaas la isku haystaa waan meeshii laga yiri labada haraga isku haystaa hooyadood waa sida gacantaas soo ma aragtay yani meesha inaga status-ka waxbarashadeenu ay sida ka tahay maamuladeenu waxay isku haystaan marka inta iyagu wax ku bixin lahaayeen priority ay siin lahaayeen dhaqaalaha meelahaas kabka ah si loo qaybsaa waa la isku haystaa waana sib darar runtii taas marka waxay keenaysaa in aan STEM-ka iyo kuwa kaleba ay runtii ay